سفيرك سومالان فدي dalkani Kenya Cabdillaahi Cabdi Cali Dhakar ayaa casuumad qada sharaf ah u sameeyay hogaamiyaha mucaaradka isbahaysiga Code Raila Amolo Odinga isagoo uga mahad celiyay hadalkii uu dhawaan ka jeediyay Raila Odinga khudbadiisii magaalada London ee uu ku taageeray dawladda Somaliland sheegayna inay gaadhay Somaliland xilligan caalamku indhaha ka qarsan karin ee ay haboon tahay inuu caalamku ixtiraafo jamhuuriyadda Somaliland isagoo ku nuuxnuuxsaday Raila Odinga in isaga shakhsiyan iyo xisbiga uu hogaaminayo isbahaysiga Code ba ay ixtiraafsan yihiin Somaliland kuna taageereen muddada 25 sanadood ahayd waxyaabihii ay qabsadeen iyo nabadgelyada ballaaran ee ay kula nool yihiin mandaqada Geeska Afrika. Safiirka ayaa u sheegay Raila Odinga inuu martiqaad rasmi ah uga sido dawladda Somaliland gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda Somaliland Dr. Saad Cali Shire kaasi oo la doonayo inuu dhawaan ku tago jamhuuriyadda Somaliland taasoo aqbalay Raila Odinga inuu martiqaadkaasi ku tagi doono dhawaan jamhuuriyadda Somaliland isaga iyo xubno kale oo hogaaminayo. Haddaba safiirka oo arrintaasi faahfaahinayna waxa hadaladiisii kamid ah sida tan shalay martiqaad aan martiqaaday gudoomiyaha isbahaysiga Code Raila Amolo Odinga aan shalay ku kulanay magaalada Nairobi ayaan shalay geesinimadii uu ku taageeray Somaliland London speech ku ka bixiyay ayaan shalay u mahad celiyay mahadaas oo ka siday wasiirka arrimaha dibadda Somaliland iyo dawladda Somaliland guud ahaan geesinimada uu muujiyay shalay wuxuuna ay ballan qaaday inuu weligiiba Somaliland taageersanaa uu arkay inay dawlad fulisay waajibaadkii laga doonayay dawlad fuliso ee xuduudadeeda iyo dalkeeda gacanta ku hayso nabadgelyada Somaliland martiqaadkii uu wasiirka arrimaha dibadda uu ballan qaadayna uu aqbalay aadna wuxuu u salaamay reer Somaliland ayuu taageerada u siiyayna wuxuu yiri waa mid aanan la laabanayn aanan cidna kaga baqayn aan weligay u taagnaan doono iyo xisbiga Ford in general. Cabdillaahi Cabdi Cali warbaahinta jamhuuriyadda Somaliland magaalada Nairobi.